kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan timinta ciyaarta xiisaha badan ee u dhaxaysa kooxaha kubadda cagta saxaafi iyo weliba kooxda kubadda cagta ee horseed sawir wada jir ay galayaan markan ciyaaryahanada saxaafi ay sawir wada jir ay sameynayaan markan waxay bilaabatay durba ciyaarta saxaafi ayaana baaskood ugu horeeyay qaatay Ibrahim isaga ciyaaraya weli dib ayaa loo soo ciyaaray markan daafaca Ismaaciil uu soo korosay mahad goolka koowaad ee ciyaarta ayaa imaaday kooxda kubadda cagta ee Cawiye Maalin ayaana shabaqada gaartay mahad ayaana kulankiisa labaad oo xiriir ah goolka gaaraya xidiga nambarka 9aad ee kooxda kubadda cagta ee horseed xaawna ka ciyaarta ka dhigay gool yeebar Ismaaciil ayaa kubadda soo xambaaray isaga ayaana shabaqada gaaray ciyaaryahanka weerarka ah ee kooxda kubadda cagta horseed mahad maxamed cabduqaadir mahad shine kamid yahay weeraryahanada dhalinyarada ah ee kooxdan ana kulankii labaad oo xiriir ah uu garoonka Stadium Muqdisho uu gool ku dhalinay ciyaaryahankan xilli ciyaareedkan madax qurux badan ayuu dhaliyay tabaaldega cajiibna waa uu sameeyay horseed ayaa goolka hore ciyaarta bilowday 15 daqiiqo ee ugu horeeyay ciyaartan ayayna ku qaadatay in goolka koowaad ee ciyaarta ay la imaato waxaana kooxda horyaalka difaacanayso ay doonayaan in kulankan ay guushooda xaqiijiyaan noor waa uu sii gudbiyay markaan kubadda Cabdikariin ayaa kubadda alisa barnaamijka farxaan goolkii labaad ee ciyaarta ayaa imaaday waxaana dhaliyay xidiga nambarka 10aad ee kooxda kubadda cagta horseed farxaan maxamed axmed farxaan xidig aqalka yar ayaana shabaqada gaaray caasi kubadda caawinteeda lahaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdikariin Cabdallah Qobaaye horseed waxaa ugu dambeeyay horyaal inay ku guuleystaan 1980kii laakiin sanadkii hore ayay sameeyeen wax ka duwan gool kooxda kubadda cagta ay saxafi ayaana la imaatay gool hore ciyaarta ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdulqaadir ayaana gool la imaaday kaasoo bedel ku soo galay ciyaarta gool ayuu dhaliyay laba gool iyo gool ayayna noqonaysaa waxaana kooxda kubadda cagta ay saxafi ay sameyn kartaa soo laabasho iyadoo aad loo xasuusto in sidaan oo kale MCC soo laabasho ay ku sameysay markii laba gool ay ka kala dhaliyeen Maadshine oo qaybtooda gool dhaliyay Farxaan Xidig waa laga dafay kubadda markaan halisteeda ayay leedahay Cabdulqaadir rigoore ayaa loo dhigay kooxda kubadda cagta ee saxafi iyaga ayaana soo laaban kara gool kulaad ayaa markaan loo dhigay taasoo ciyaarta ka dhigi karta laba gool kooxda Cawiye Maalin gool kulaadka ayaa markaan la tuurayaa goolahayaa lagu magacaabo Mayow ayaana wajahaya markaan fursad uu ku badbaadin karo kooxdiisa Axmed Mayow Shariif garsoore kaafi ayaa la hadlay goolahaya Mayow kaasoo fursadiisa u badbaadin kara kooxdiisa saxafi goolkii labaad ee ciyaarta ayaa la helay Cabduqaadir ayaana mar kale shabaqada gaaray laba gool ayay ciyaartu ay ka dhigeen kooxda uu hogaamiyo Cabdi Bidaac Taatika ayaana la soo laabatay natiijada ciyaarta taasoo ciyaarta ka dhigaysa